wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ku soo noolaaday guryo kala duwan iyo xaalado kala duwanba. waqtigu waa silsilad wareegaysa oo maalinba nin la daris ah. waxaa la gaadhay waqtiga aan cidna damaanad qaadin naftiisa jabari lahaa. isagu wuxuu guriga adeerkii joogaba wuxuu shaqo ka helay gabadh maalqabeen ah oo la odhan jiray Khadiija bintu Khuwaylid sanadkii 594kii. Khadiija waxay ahayd gabadh carmal maalqabeen ah lagana yaqaanay gayiga ay ku nooleed. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka shaqayn jiray ganacsiga Khadiija, wuxuuna kala safri jiray Makka iyo Suuriya. muuqaalkana maanta daawadayaal waxaan kaga hadli doonaa waqtiga ganacsiga, sidoo kale waqtiga ay midoobeen Khadiija iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ay ku midoobeen nolosha. magacaygu Maxamed Cali, ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ganacsiga Khadiija ka dhigay mid aad u hana qaaday una horumaray. markii ay Khadiija aragtay daacadnimada iyo horumarka ganacsigeeda, waxay aad ugu qanacday nabiga sallallahu alayhi wasallam sida habsami socodka ee uu wado ganacsiga. dhinaca kale Khadiija waxaa la dhacday nabiga sallallahu alayhi wasallam aaminkiisa, ammaan dhowristiisa iyo calaamado kale oonay hore intay ganacsada ahayd u arag. faa'iidadii ganacsigeedu waxay noqotay mid aad u heer sarreysa. Khadiija ay nabiga sallallahu alayhi wasallam la dhacday hanaankiisa, sida darteed waxay nabiga sallallahu alayhi wasallam u soo bandhigatay inay isguursadaan. markii nabigu sallallahu alayhi wasallam uu codsiga helay, si wanaagsan ayuu u aqbalay. sanadkii 599kii nabiga sallallahu alayhi wasallam da'diisu waxay 25 jir, halka Khadiijina ay 40 jir, taasoo ina tusaysa in qof kasta guursan karo ruux kasta uu jecel yahay inuu nolol la wadaago. nabiga sallallahu alayhi wasallam Khadiija aad ayuu u jeclaa, waayo wuxuu ka helay taageeradii ugu weyn ee naftiisa. waxayna noqotay ruuxii koowaad ee rumeeyay diinta islaamka ee loo soo dhiibay. tusaale ahaan Caaisha bintu Abubakar oo ahayd gabadhii nabiga sallallahu alayhi wasallam waatii lahayd weligii kumaan masaarin gabadh uu nabiga sallallahu alayhi wasallam qabo aan ahayn Khadiija oo weliba iga horeysay dhimashadeeda 3 bilood. maalin maalmaha ka mid ah ayay weydiisay nabiga sallallahu alayhi wasallam, waa maxay gabadhan Khadiija aad mar kasta hadal haysaa? nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ugu jawaabay Caaisha cod aad u naxariis badan, waxay rumaysay iyadaan cid rumayn nabinimadeyda. waxay noqotay ruuxii koowaad ee diinta islaamka soo galay markii gaaladii u rumayn weyday. way ii caawisay si aan qof kale gacan ugu fidin, way ii caawisay. qalbiga iyo xasuusta nabiga sallallahu alayhi wasallam aad ay ugu dheerayd Khadiija ilaa uu ka dhintay.